madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xalayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka in la isugu yimaado shir 22ka bishan Maarso oo ku beegan Isniinta. shirku wuxuu ka dhici doonaa Afisiyoni Center xarunta Afisiyoni oo ay leeyihiin ciidamada cirka Soomaaliya. xarunta Afisiyoni Center ayaa loo diyaariyay waxaana hawsha qabanqaabadeeda iyo diyaarinteeda ku hawlan xafiiska ra'iisul wasaaraha. waxaan rajaynaynaa inaan dalkani oo inoo ajanda noqon doonta 3 kelmadood oo ah doorasho doorasho doorasho. waxaan runtii aad uga xunnahay iyadoo dalku doorasho aadayo in siyaasiyiinta qaar ay ku mashquulaan inay sameeyaan isbahaysiyadaas oo ah doorasho la dirir. isbahaysiyada doorasho la dagaalanka ama doorasho diidkaahi waxay inagu celinayaan jid qaldan iyo jid dib u dhac. waxaynu ka soo gudubnay caqabado badan. caqabadahaynu ka soo gudubnayna waa tan hadda guusheeda ay muuqato ee ah dalkeennii maanta in loo arkayo dal ka soo baxay burburkii iyo jabkii iyo qaranjabkii oo u soo gudbaya dal dhisan oo hay-adihiisii ay wada dhisan yihiin dastuurigaha intaynoo dhimanna oo inoo dhammaystirmi doontaa. haddii aan halkaa ku nuuxnuuxsado dawladdu waxay diyaar u tahay in sida ugu dhaqsaa badan doorasho loo aado. sida ugu dhaqsaa badan 17 September heshiiskii waan haysanaa, labada aqal ansixiyeen, 16 February guddidii farsamadana waan haysanaa. waxaan rajaynaynaa in wixii ka dhiman la dhammaystiro. guddida farsamada anugaan guddoomiye u ahaa waxaanu soo qorshaynay ajandaha shirka. wuxuu socon doonaa 2 maalmood, Isniinta iyo Talaadada. labadaa maalmoodna waxay noqon doonaan in lagu ayido oo lagaga wada hadlo sida loo dardargelin lahaa, loo ayidi lahaa 17 September iyo 16 February iyo madaxdu inay wada hadlaan oo ay sidii dalkani doorasho waadi lahaa ka wada hadlaan. waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inay dawladda ku kaalmeeyaan ducada iyo taageerada si aynu dalkani u noqdo dal qani ah oo shidaal leh oo barwaaqo ah oo maantaba soo dhacsaday oo xorriyaddiisii iyo madax bannaanidiisii ay meel fiican marayso. dawladdu waxay diyaar u tahay wherever meel kasta ha ahaato, xataa haddii la yidhahdo badda dhexdeeda kaale badda dhexdeeda waa imanaynaa si dalku doorasho waado. haddii la yidhahdo badda dhexdeeda ha lagu shiro, waxaan diyaar u nahay si dalku doorasho waado inaanu nimaadno. doorasho doorasho doorasho. waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo shirkaygan jaraa'id kiiskii Heeg yaalla. waa taqaanin kiis maxkamad ku jira lagama hadlo sababtoo ah waa maxkamad, waa garna laba qof kama wada qosliso, kama hadlayo. laakiin waxaan ka hadlayaa shalay warqad ka soo baxday dawladda aan jaarka nahay ee dariska nahay ee Kenya. warqaddu runtii waxay ahayd warqad aan ka turjumaynin ilbaxnimada dawladda. kiiska la isku hayo iyo waxa warqadda ku qornaa ismaayil ahayn. waxaan xasuustay markaan warqadda akhrinayay iyo sida ay uga qaadatay maxkamadda uga baaqatay dawladda Kenya. nin odaya oo weynaaday oo cimriyey ayaa wuxuu arkay nin dhalinyaro ah oo tacab ku jiro oo beer falayo oo markaa gabadh qurux badan oo u doonan tahay. markaa wuxuu rabay inuu gabadhii weli ma guursan oo gabadh buu rabay inuu ka qaado. markaa si uu isu muujiyo inuu nin dhaqaalena haysta yahay, nin indhabeel baa la odhan jiro, indho walla u ahaa, indhihiisuna fiiqan yihiin, gamuun buu geed ku soo taagay ama fallaadh. markuu geedkii ku soo taagay ayuu wuxuu ku yidhi
gabadhiisu uu isaga dhaadhiciyo inuu nin khatar yahay geedkaas waxa guntiisa ku taagan ma gamuun ku jabay baa ma fallaan ku ganan baa ma atoor gadoodaa geesii mid kaga tegey bal geedkaa waxa ku yaalla sheeg dadkii waa isugu yimaadeen geedka halkaa ku yaalla yaa garanaya waxa ku yaalla isagaa ku soo muday moogta dabadeedna ina keena buu yidhi wuxuu tusayaa inuu nin khatara yahay oo indhafiiqan wax kasta arkaya intii ay sii socdeen baa soo intuu ka soo maqnaa hal geel ah baa geedkii iyo dadka dhexdoodii fadhiisatay gebgebtii iyo iswaalkii wuxuu guudka kaga dhacay hal fadhida gelgelishow ka sokaysa geedkii geedka sokadiisii hal weyn oo fadhida iyo dusha kaga dhacay ninkii lahaa gamuun geed ku yaallaan arka horta qoladii Kenya intaan maxkamadiiba la gaarin waxay ku dhex dhaceen jidka dhexdiisa way tagi waayeen maxkamadii hadallo deelqafa way ku tuureen annagu maxkamadda waa taageersannahay go'aankeedana waa taageersannahay wixii ka sababtay markaad kiiskaaga maxkamad geysato waa inaad aqbasho xil ka soo baxa laakiin walaaladeen waxay diideen cadaaladdii waxay diideen maxkamaddii caalamiga ahayd waxay ku doodeen in maxkamaddu aanay tixgelin 2009 heshiiskii dhacay warqadoodii shalay waa wada akhrideen qodobka saddexaad waxay yidhahdeen maxkamaddu ma tixgelin MOU-gii 2009 dhacay oo ay ahayd inaanu bannaanka ku heshiino ay Soomaaliya aqbashay Soomaaliya ma aqbalin 2009 golaha shacabku unanimously aqlabiyad bay ku diideen MOU-ga aqlabiyad bay ku diideen heshiiska sidaa darteed waxaan u sheegaynaa dowladda Kenya Soomaaliya inaanay marna aqbalin heshiiska ay ku doodayaan ay leeyihiin maxkamaddu ma tixgelin marka noo eego qodobkooda saddexaad waxay nagu tilmaameen expansionist dad raba inay Kenya qabsadaan ma nihin dad raba inay weeraraan ma nihin waxaanu nahay dowlad nabadeed dal nabadeed dal jecel darisnimada laakiin haddaanan intaa jeclayn maxkamadda maanaan tagno peacefully and according with justice in cadaalad iyo qaynuun lagu kala baxo oo aniga idinku lahaa ilbaxnimadu waxay ku jirtaa sharciga oo lagu kala baxo waxay yidhaahdeen annagu diyaar ma nihin warqadooda saasaa ku qornay annagoon diyaar ahayn baa nala gaaday qodobka 14aad 2016 2015 2021 hadda marayno 6 sannadood waxa lagu diyaarin waayey ma aqaan waxa lagu diyaarinaya hadda 6 years haddaad ku diyaar garoobi weydii waxaasoo dhan waxaanu arkaynaa dad aan cadaalad rabin laakiin annagu cadaalad baan rabnaa darisnimo wanaag baan rabnaa nabad baan rabnaa waxaan rabnaa in lagu kala baxo sharciga waxaananu ka warsugaynaa maxkamadda cadaaladda adduunka iyo go'aankeeda waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan rabaa halkan inaan uga diro salaan hambalyo iyo mahadnaq tiimkii difaacayay baddeenna ee joogay heeg ee uu hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenku Mahdi Guuleed looyaradii iyo xubnihii dowladda ka socday ee ka qayb galay ee aan nasan habeen iyo maalin ee soo jeeday ee u soo jeeday dhacsashada xuquuqda Soomaaliya